hooyo waa ku jeclahay waxbarasho ku dadaal. Maxay u yihiin kuwa ugu nasiibka badan dunida kuwa haysta qoysas jecel? Waxaa jiray nin oday ah. Waxa uu lahaa lacag, shaqo wanaagsan iyo saaxiibo badan. Dadka badankiis waxay u arkayeen nin guulaystay. Maalin kasta waxa uu ku mashquulsanaa shaqo iyo raadinta nolol ka fiican midda uu hadda haysto. Laakiin gudaha qalbigiisa mar waliba wax ayaa ka maqnaa. Maalin ayuu safar dheer ka soo laabtay. Markii uu albaabka guriga furay, gabadhiisii yareed ayaa ku soo booday iyadoo leh, "Aabe, waa kuu xiisay." Xaaskiisii ayaa cunto u diyaarisay. Hooyadiisna taleefanka ayay ku tiri, "Wiilkaygiiyow, ma nabad qabtaa?" Habeenkaas ninkii odayga ahaa waa uu fadhiistay isagoo aamusan. Wuxuu garowsaday in farxadda dhabta ah aysan ku jirin lacagta uu bangiga dhigto, balse ay ku jirto dadka qalbiga uga duceeya marka uu maqan yahay. Dad badan waxay ku mashquulaan raadinta hanti, magac iyo sumcad. Waxay moodaan in nasiibku yahay baabuur qaali ah ama guri weyn, laakiin runta noloshu waa tan. Qofka haysta qoys jecel waa qof horay u hodmay. Qoyska ku jecel marka aad dhiban tahay. Qoyska ku garab istaaga marka adduunku kaa jeesto. Qoyska ku farxa adiga oo aan waxba haysan. Kuwaas waa nimco aan lacag lagu iibsan karin. Waxaa jira dad badan oo lacag leh, laakiin habeenkii cidna aysan la hadlin. Waxaa jira dad caan ah oo gudaha ka murugaysan. Waxaa jira dad wax kasta haysta marka laga reebo qalbi dareema jacayl qoys. Laakiin qofka haysta hooyo u duceysa, aabe taageera, walaalo ku naxariista ama carruur ku sugaysa waa qof nasiib badan xitaa hadduusan taajir ahayn. Nolosha ugu dambayn waxay ku baraysaa hal xaqiiqo. Maalin maalmaha ka mid ah lacagtu way dhammaan kartaa, shaqaduna way isbedeli kartaa, dadka badankoodna way kaa tegi karaan. Laakiin qoyska dhabta ahi wuxuu kula joogi doonaa xilliyada ugu adag. Sidaas darteed, haddii aad leedahay qoys ku jecel, ha u qaadan wax caadi ah. Waqti sii, xushmee, la hadal, una sheeg inaad jeceshahay. Sababtoo ah dadka ugu nasiibka badan adduunka ma aha kuwa lacagta badan, waa kuwa guriga looga soo duceeyo jacayl.